si kastaba ha ahaato waxaa jira caqabado aan la dhayalsan karin oo hor yaalla ganacsatada dabaqada dhexe iyo hoose waxaa ka mid ah sida halkan laga sheegay helitaanka maalgelinta iyo deymaha oo ku adag ujeedooyinka ugu weyn ee shirkani waxaa ka mid ah in la abuuro xiriir ka dhaxeeya ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe maalgashadayaasha hay'adaha maaliyadeed iyo hay'adaha dawladda in ganacsatada yaryar lagu dhiirigeliyo laguna bogaadiyo ganacsiga ay abuureen si ay u horumariyaan dhaqaalaha qoysaskooda iyo ka shaqaalahooda iyo guud ahaan inay ka qayb qaataan horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha in la soo bandhigo agabka iyo badeecadaha iyo adeegyada kala duwan ee ay soo saaraan ganacsatada yaryar iyo ganacsatada dhexe magacayga Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa maanta waxa ka mid ahaa macaamiisha ama dadka ka soo qayb galay carwadan ee lagu taageerayo ganacsiga yaryar ama waxa weeye ganacsiga dhexe labadaba waxa farxadii ah in ay u heleen fursad ay ku kobciyaan dhaqaalahooda iyo ganacsigooda iyo dakhligoodaba sida ay u noqon lahaayeen waxa weeye ganacsi weyn aad iyo aad baa arrinta ugu mahadcelinaya waxaan u hambalyeynaa saasoo kale carwada aad ka qurux badan leh ee dhammaan lagu ay shirkadihii waxa weeyaan dalku ay ka soo wada qayb galeen sida IBS oo ah waxa weeyaan bank international ah oo meelo badan waxa weeyaan laga helo saasoo kale mar anigu aan qurbaha joogay runtii aad iyo aad baan u tabay yani boos ugu jiro waxa weeyaan bulshada maadaama waxa weeye markaad meelo wadan aad tagto aad dareemayso aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa IBS bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Dr. Mustafa Ismaan Ibrahim waxaan aad ugu mahadcelinayaa bangiga IBS oo aan ka ahay macaamiishiisa adeegyadiisana aan in badan isticmaalay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa bulshada meel fiican baa u hayaan shaqo fiican baa u hayaan waxaan leeyahay Allah in barakeeyo aad baan u mahadsantihiin annagu IBS bank ahaan waxaan naga go'an in aan ka qayb qaadano horumarinta iyo la shaqaynta ganacsatada yar iyo ganacsatada dhexe waxaanu haynaa maalgelino aan ugu talagalnay ganacsatada taas oo ah maalgelino caalami ah runtii sharaf weyn bay noo tahay in aanu ka qayb galno barnaamijkan aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa wasaaradda ganacsiga in shirweyne aad u weyn oo dhammaan ay qayb ka yihiin stakeholderskii ay ku soo casuumaan qaybna aanu ka noqonno aad iyo aadna waan u mahadcelinayaa macaamiisheedana waxaan leeyahay ku soo dhawaada IBS bank